والله ما قرن نقولين إساقو بالله أو طلع أنت جيد قرن الصوماليين والله بالله بعدن حتى وقوي قلب لنا نقولين تفا للسعودي إساقا أن حلاس ما مسبحي إساقي حارنته وي الشيء الطلاهيد وي مسبحي كلب دلوي مسبحي يهود دلوي مسبحي نجس دلوي مسبحي ديك يعب دلوي مسبحي بارا دشوي مسبحي أنا كسرفني كلب دلوي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan oo aan meel kasta adduunka joogtaan sida aad maqlayseen iyo muuqaalka aad u jeedeen waa ninka taqaanaan ee lagu bartay xumaanta iyo cayda waa dabacasar oo caynaya Somaliland isla markaana diidan madax banaanida Somaliland iyo inay noqotay dawlad ka goosatay Soomaaliya isla markaana ku baaqaya colaad ku baaqaya waxaad maqlayseen asagoo aflagaadeynaya madaxweynaha hadda Somaliland mudane Muuse Bixi waxaad maqli doontaan asagoo caynaya beesha Isaaq isla markaana nasabadooda caynaya kuna tilmaamaya inay Ingiriiska waxaan afkiga soo marin karin idinka ayaa maqli doona asaga ayaa ina sheegi doona oo ku tilmaamayo hadii awowayaalkiis buuriyada Ingiriis dhuuqi jireen anaga awowayaalkayo baaruuda iyo buladka sida loo yaqaanaan iyo sida nafta loo bixiyo ayaa yaqaanaan waxa kale oo la yaab leh inuu amray oo uu fatwooday oo uu yiraahdo lagu jihaado hana la dilo askari kasto u shaqeeya Muuse Bixi ciidamada Muuse Bixi ha lagu jihaado haddaad aragtaan nin ka amar qaadanaya Muuse Bixi waajib waxa idinku ah inaad ku jihaadaan meel kasta joogtaan shab Soomaaliya askari labisan oo kula Muuse Bixi baan ka amar qaataa haddaad aragtaan fi sabiilillah ugu jihaadaan idilay kudmaayo taasi macnaheedu waa maxay askari kasto Somaliland ah inuu dhiigiisa banaystay ninka noocaas ah oo qabiiladii kale Soomaaliya hore u soo caayay oo ma taqaana ummadii Ilaahay dhan nafta u keenay oo 24 saac kaamira la wareegaya ayaa horta Somaliland gobonimay sameysay waxba maysan yeelin waxayna yiraahdeen ku soo dhawow dalkaada oo imow markuu dalka yimid oo la rabay inuu si sharaf leh ku joogo ayuu wuxuu bilaabay caay iyo aflagaado wuxuu bilaabay inuu la wareego life asagoo ka faa'iideysanaya fursadda oo dadka ku handadayo waa lagu daawanaya 4,000 baa kugu jirta 5,000 baa kugu jirta waxaan leeyahay horta dawladda Somaliland xaq waxay u leedahay cid kasta oo amnigeeda khalkhal gelisa isla markaana lid ku ah shuruucda dalka ka jirta inay gacan bira ku qabato sidoo kale waxa Somaliland aan faraya aan leeyahayna ka codsanaya ninkaas inay dhaqan celis u sameeyso oo balmiir ku soo dejiso oo waxaan laga tirtiro uu ku noqday waxa uu ku shaqeysto مدينين شقيسته ما وانا لغو شقيسته waxaana runtii la oran karaa waxa dad u kaba galiyay waa la ogyahay oo ma taqaan Hargeysa ugu durbaantumay isla markaana ka dhoofay anigu shakhsiyan ma jeclay inaan qof wax ka sheego laakiin arintani runtii waa arin aan loo dul qaadan karin dadka Somaliland ku eedeynayana arrimaha noocan oo kala ah oo dabacasar u tumayana dabacasar horta ogaada oo dhageysta oo wuxuu dadka ka sheegay dhageysta warciidu cafiyay ma jirto shakhsi muu cafin حتى أنا جينا لا هذا هيو ولقي مقعد اسمه سؤال القادم شخصية ده واحد بيقول شيء أنا ما أقان طبعا عصر ولقي اسمه ناركين لايف كمان نقول من مال وكجر وحبكم مدرسين ساسي تاني حتى أنا يقول ده واحد قد بي عيد أوجع جرتا مركا وحنو لنا هاي ومد الصوماليات إلهي سبحانه وتعالى عن كعب سنه حمان تأسكر ابنه قف حمان وضيان الله صعبته من وحو عاي أويال وحو عاي قبائل دن وحو خلق لي أمانك وحو فتوى وضيان أسكرت الله يوم arrimaha noocaas oo kalena arrimo loo adkeysan kara ma ahan mana ahan macquul igama noqonayso dabacasar inaan taageero waxaan ogahay xumaantiisa ayaan ogahay waxaan ogahay beentiisa ayaan ogahay waxaan ogahay wax khaldan uu sameeyay dhinaca kale waxaan aaminsanahay Somaliland waa dawlad jirta dawladdaasi xaq waxay u leedahay inay xukunto inay garaacdo inay wadanka musaafiriso cid walba ay u aragtay inuu amaanka khalkhal gelinayo saas darteed arin u taala ma ahan social media arin u taala ma ahan Soomaali weyn arin u taala ma ahan Somaliland dadka ku nool xukuumadda Somaliland ciidankeeda booliiskeeda amnigeeda wixii ay arkaan xaq waxay u leeyihiin
inay tallaabo sharciga ka qaadaan. saas darteed dabacasar walaalayaal afkiisa ayuu isku xiray, cid ka ammaan gashay ma jirto. wuxuu caayay qabiilo, wuxuu caayay culumo, wuxuu caayay shakhsiyaad, wuxuu caayay waxa uu cafiyey ma jirto. maantana wuxuu rabaa intuu Hargeysa tagay oo si goobannimo loo soo dhaweeyay. wallahi xaqiiqatan Soomaaliland waa dad dulqaad aad iyo aad u fara badan, waa dad xukuumadooda iyo shacabkooda dad fiican ah, waxay siiyeen fursad aad u dheer. waxaan aniga jeclaan lahaa markuu madaarka ka soo dego in la yiraahdo saaxiib dhageyso mobilkaadana keen live dambe adoo meelaha la wareegaysna kuma mari karno, danta aad Soomaaliland u soo gashay ka qabso, haddii kale dib u laabo. halkaas ayay ahayd. laakiin de maamulku waa maamul gob ah, qof walbana waa xor. aniga Soomaaliland waxaan ka imaaday October ayaan tagay, waan ku soo dhulka soo maray Hargeysa ilaa waxaan tagay Garowe oo dhulka marayay. wax dhibaato aan kala kulmay ma jirto. cagsiga waxaan kala kulmay soo dhaweyn, waxaan kala kulmay dad fiican, waxaan kala kulmay dad akhlaaq leh oo fiican. marka reer Hargeysa way ku mahadsan yihiin inay markii hore ninkaas ma aragtay san wax dhibaato u geysanin, laakiin markii uu xadgudbay oo uu caay bilaabay asagoo jiifa sariir oo la wali dilay ayuu wuxuu oranayay gabdhaha Soomaaliland xataa mudin gabdhaha isaaqa waxa fuula Ethiopian ayaa fuula ayuu dhahay. subhanallah, afkiisa ayuu saas ka lahaa. marka waxyaalaha waxa la yaab kale waxay kamid tahay in arintaasi uu khalad ku galay. midda kale wuxuu og yahay wuxuu la wareegayaa arrimo xasaasi ah. marka in la xiro oo dadka laga qabto horta waa arrin fiican. waxaana maamulka Soomaaliland leeyahay ninkaas soo dejiya, waxaad geysan u aqli celiya, akhlaaq u sameeya, ku soo celiya. dhinaca kale waxaan rabaa inaan baaq uga diro walaalaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan. walaalayaal xilli adag ayaa lagu jiraa, xumaanta ayaa fara badatay. ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ka cabsano, adduunkan waa laga tagayaa. inaan akhlaaqda wanaagsan ee islaamka aanu faafino. walaalayaal akhlaaqda wanaagsan jannada ayaa lagu galaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wa khaaliqin naasa bikhuluqin xasan, dadka waxaad kula dhaqantaa akhlaaq wanaagsan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waquuluu linnaasi xusnaa, dadka wanaag u dhaha. maanta walaalayaal wanaag lama sheegayo, qofka xumaanta sheega ayaa loo sacabatumaya. macquul ma ahan يعني ninkan waxa lagu bartay iyo ma taqaana waxa heerka la gaarsiiyay midna maahan. midda kale waxaan rabaa inaan dadku u sheego qof xumaan wada weliga ha garab istaagin. sidoo kale waxaad ogaataa qofka taageera qofka xumaanta wada iyo kan sheegaya intaba waa isku mid. marka naftaada ilaasho. sidoo kalena waxaan dadka ugu baaqayaa mar labaad Soomaaliland yaan lagu mashquulin, waajibkeeda ayay gudatay. waana uga mahad celinaynaa inay gacan bira ku qabato cid kasta oo akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo iyo isnacayb dadka ku dhex abuuraysa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa Soomaaliya oo dhan meel kasta ay joogaan inuu nabad iyo amaan siiyo, isla markaana Soomaaliland barakeeyo, Soomaalida kala barakeeyo, meel walba ay dadkeena joogaanna barakeeyo, isla markaana dadka noocyadaas ah aan la siininin fursad la siininin lagu dhageysto inay ku hadlaan. waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaad noqotaa mid wanaaga taageera. ilaahay subxaanahu wa tacaala ku taageero. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.